بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي meesha waxaan ku tusanayaa qaabka loo isticmaalo Premiere Pro-ga. Premiere Pro markaa soo kaciso horta marka ugu horeyso uu soo kacayo wuxuu ku leeyahay project wuxuu ku tusaa new project aad leedahay magaca project uu sameynaysa meesha ku save garay lahayd wixii oo dhamaad dirsanaysa waa kana tan oo kale waaye meeshan kore magaca ku qoraysa inta hadii aad ka bedelaysid macnaha meesha ku save garaynaysa aad ka bedelaysid browser leedahay kadib folderka macnaha ku save garay lahayd aad raadinaysa marka taas hore u soo sameeyay horaan u soconaynaa okay saano marka interface-kiisa saan waaye marka waxaa rabtaa marka in aad macnaha video editing waaye maana video recorder ma marka videoga ayaad editing ku sameyn kartaa meeshan waxaa la media bin allah inta previewer-ka waaye inta waxa waaye project waaye project media waaye ama media browser inta waxa timeline viewer waaye timeline viewer okay marka waxaan rabnaa marka inaan soo qaadano video inaan rabnaa inaan ku darno saddex qaab ayaad ugu soo dari kartaa marka videoska right click aad leedahay waxaad leedahay import aad leedahay import markaad tiraahdo kadib waxaad ka raadinaysaa meesha videoska uu ku yaala ka raadinaysaa taas waa dariiqa koowaad tan labaad waa adigoo dragging ku sameeya waa kan oo kale waa soo jiidaynaa dragging aan ku sameynay halkaan aan keenaynaa waa ku daynay marka uu soo qaadi hadda inta yaroo macnaha tusaayo ka anayo ayaa sugaysaa taas waa labaad mar waxaa tiri import right click tiri import tiri mar kalena waxaa tiri waa soo dragging aan ku sameysay hadda jaa uu keenay okay marka saddexaadna waxaad leedahay file leedahay import aad leedahay waa marka saddexaad waa kana marka hadda video inta halkaan noo yaala marka waxaan rabnaa marka inaan soo dhigno meeshan oo sequence-ga ah drop media here to create sequence okay sequence-gaan soo dhigaynaa sequence waa soo jeedi saas oo kale markuu yahay waxaa ku daynaysaa mouse-ka waa daynaysaa in yara sugaysaa marka isaga ka helayo culayska hadda waxa waaye oo computerka waaye maahane barnaamijka saas okay waa kana viewerka waa kuwana tusiy halkana in yar noo dhiman halkana waa kaasa marka okay barnaamijka waa kana marka halkaas ka daaraysa wixii aan soo duubnay automatic ahaan ayuu meesha noogu keenay isaga okay marka inta waxaa ku yaala toolska ku yaalo inta toolska ku yaalo waa kana toolski meeshan waxaa waaye videoska hadda haddaan rabno videoskan inaan qarino haddaan rabno isha markino ayaan click siinaynaa haddaan rabno inaan mute aan sameyno codka aan xirno intaas taabanaysaa haddii codad badan ay yaalin meesha solo markaa ku dhufatid staas marka ku dhuftid waa solo marka ku dhuftid kan uu ku aadan yahay kaliya le ku hadlaa inta kale ma hadlaayaan isla asagii le ku dhufanaysaa isla asagii le ka qaadaysaa mute haddaad tiraadidna ma hadlaayo hadda tusaale ahaan hadda markaan daaro kale wax hadlaayo malaha ujeedado okay mute-kan ka qaadaa marka waa daara qaybtan waxaa leedahay timeline okay marka waxaa jirta marka meeshaan riyadan jaalada markuu yahay si fiican uma soconayo kasarkan si fiican uma soconayo viewerka si fiican kuma tusaa marka sidee marka sidee looga dhigaa si smoothly inuu u socdo sidee looga dhigaa keligaa siinaysaa keliga markaas siis kadib sequence aad leedahay waxaa leedahay render effect ama render into out aad leedahay waa sugaysaa markuu dhameeyo inta riyadan jaalada cagaaray noqonaysaa haddii aan jarnana guduuday bedelaysaa marka macnaha cagaar laga dhiga hadda asaga arkaysa in yar kadib arkayna in yaraan sugaynaa waa kana riigadii waxay noqotay cagaaray noqotay
okay marka waxaan rabnaa marka hadda si oo wixii aan soo nadiif duubnay ah u automatic soconaa. ahaan ayuu meeshan noogu keenay. isaga marka qaybtan waxaa la yidhahdaa media bina la yidhahdaa, qaybtan waxaa la yidhahdaa preview aa la yidhahdaa, qaybtan waxaa la yidhahdaa timeline time. codkii aan iska gaabinay videoga codkiisa almuhiim waa kaas si oo fasiix u ku soconaa. waxaa rabtaa marka haddii aad rabtid inaad jartid, haddii aad rabtid inaad jartid waa kor imaanaysa. horta codka iyo muuqaalka markaa inaad kala saartid oo laba ah kala dhigtid. hadda halay isku yihiin, hal maray wada soconayaan, laakiin waxaan rabnaa marka inaan laba inaan kala qaybino oo codkana gooni u ahaado oo sidii raba aan maamuli karno codka, muuqaalkana sidaa rabna u maamuli karno. marka see marka loo sameeyaa, marka waxaad leedahay right click aad leedahay. right click markaad tiraadid unlinki aad leedahay, unlinki aad leedahay. waxaad dooranaysaa sakiintaad dooranaysaa razor tool kaasaad okay. waxaad tegeysaa marka filaarta caadiga tegeysaa, waa kana kan waa ku jaran yahay, saarta yeeli kartaa. haddaa rabtid kana soo hormari kartaa. yaran sugeyna xoogaa yaro mashquul noqday. marka hadda markii la kala jarjaro cagaarkan sida macaanay guduudaa soo gelaya. control z wakaas. hadda waa kala horumarina sarabna ka yeelnay. marka waa kana sida aan rabna aan ka yeelnay. haddaa rabna waad tiri kartaa, waa ku dhufanaysaa right click aa leedahay, remove aa leedahay ama delete, ama keyboardkaada delete ka leedahay. codka sidoo kale haddii aad rabto inaad jartid razor toolkaa tegeysaa, sidaa intaa rabtaa ka jaraysaa, saa rabtaa u jaraysaa. kadib move aad leedahay ama waa bixin kartaa. halkaas saas ku baxayay. haddaa qaldantay aad inaad sidii ugu soo celisid control z aad leedahay. okay waxaa kaloo ku jari kartaa marka meesha rabtaa geysanaysaa, control k aad leedahay. marka isagana halkaasaa jiray. hadda qaybtaana kala jaraynaa, control waxaan leenahay k, saas ku jaran yahay. almuhiim waa kaasaa